بسم الله الرحمن الرحيم صاحبيال كسو دوادا wararkii caalamka waxaana maanta diiradda ku saari doonaa xaaladda guud ee dalkaasi Suudaan iyo dagaalada ka socda ee u dhaxeeya kooxaha mucaaradka ah iyo militariga dalkaasi Suudaan. General Mohamed Hamdan Dagalo oo ah hogaaminaya kooxaha mucaaradka ah ee ka dagaalamaya dalkaasi Suudaan ayaa khirtay in uu ku fashilmay dagaalka ka socday ama ka dhacay magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi Suudaan. isla markaana ay la wareegeen ciidamada militariga ah ee dalkaasi Suudaan. Hogaamiyaha ciidanka gurmadka degdega ah ee Suudaan Mohamed Hamdan ayaa qirtay in kooxdiisa ay ku guuldareysatay haysashadii caasimadda Khartoum ee dalkaasi Suudaan. sida uu ku sheegay muuqaal lagu baahiyay barta Telegramka, laakiin waxa uu ku hanjabay in uu dagaalka sii wadi doono dibna uu qabsan doono caasimadda dalkaasi Suudaan ee Khartoum. waan ka baxnay Khartoum, laakiin idinka Ilaahay waxa aan soo laaban doonaa annaga oo intan ka xoog badan waana guulaysan doonaa, ayuu yiri General Mohamed Hamdan Dagalo oo fariinta u diray ciidamadiisa munaasabadda ciidda awgeed. haddii ay baqadaro waan jabin doonaa ma aha kaliya Omdurman, laakiin waxaan qabsan doonaa Khartoum, Bahri iyo dhammaan 18 gobol ee dalkaasi Suudaan. weli waxa uu leeyahay waxaan qabsan doonaa caasimadda dalkaasi Suudaan, magaalada Omdurman oo daris la caasimadda dalkaasi Suudaan ee Khartoum, iyo sidoo kale guud ahaanba 18 gobol ee dalkaasi. hadalka hogaamiyaha RSF waxa uu yimid kadib markii taliyaha ciidanka Suudaan General Abdi Fattah al-Burhan uu ku dhawaaqay in uu dagaalka sii wadi doono ilaa inta dagaalyahanada ugu dambeeya laga saarayo dalkaasi Suudaan. Burhan ayaa hadalkan ku soo qaaday khudbadda ciidda oo uu u jeediyay dadka reer Suudaan. ciidanka gaashaandhigga ayaa dhawaan dib u qabsaday caasimadda dalkaasi Suudaan ee Khartoum kadib dagaallo aad u daran oo socday muddo toddobaadyo ah. waxaase jira dagaallo weli ka socda qaybo ka mid ah magaalada dariska la ah Khartoum ee Omdurman. haddaba waa kuma General Mohamed Hamdan oo ah hogaamiyaha kooxaha mucaaradka ah ee ka dagaalamaya dalkaasi Suudaan. General Mohamed Hamdan waxa uu ka soo jeedaa gobolka fog ee ku yaala galbeedka dalka Suudaan, halkaas oo siyaasadda, ganacsiga iyo colaaduhuba ay isku dhafan yihiin. ninkan oo hormuud u ah siyaasadda dalkaasi Suudaan ayaa horay waxa uu uga ganacsan jiray geela, kaas oo dagaal u arka fursad uu noqon karo nin hodan ah oo awood badan. dagaalka ayuu wuxuu u haystaaba inay tahay fursad uu ku noqon karo nin hodan ah oo awood badan, dhaqaale badan uu ka samayn karo. Mohamed Hamdan Dagalo oo loo yaqaan Hameti waa ninka labaad ee ugu sarreeya militariga haya talada dalkaasi Suudaan. waa ninka labaad, balse dhab ahaantii Hameti oo yaraantiisii iskuulka ka saaqiday ayaa haatan loo arkaa ninka ka dambeeya rasaasta ka dhacaysa Khartoum. waxaa la leeyahay waa ninka soo abaabulay in dagaalada sidan u xoogan ay ka dhacaan magaalada Khartoum ee dalkaasi Suudaan. dagaal-ogahan oo ka soo jeeda gobolka Darfur ayaa xukuma kumanaan ciidan oo ka mushaar badan, ka qalab wanaagsan ciidamada caadiga ah ee dalkaasi Suudaan. waxa uuna haystaa lacago fara badan oo uu ku maalgeliyo maleeshiyaadkaas. waxa uu sidoo kale leeyahay goobo laga qodo dahabka oo ku yaala buuraha macdanta hodanka ku ah ee dalkaasi Suudaan. waxa uuna ku tiirsan yahay saaxiibo uu ku leeyahay dalalka Sacuudi Carabiya iyo xulufo kale oo khaliijka ku sugan. saaxiibo fiican uu leeyahay oo xataa markii uu dhaqaalo u baahdo ku taageeray. sidee ayuu jagadan ku gaaray Mohamed Hamdan?
ciidamada Suudaan ayaa halgan u galay sidii ay uga hortagi lahaayeen dagaalkooda ku salaysan ku dhufo oo ka dhaqaaq waxa ayna bilaabeen in ay qortaan maleeshiya carab ah oo loo yaqaano Janjaweed taasoo macnaheedu yahay jinkii hubka qaatay ee fardaha saaraa waa dad yacni meeshii loo diraa aan ka soo jeesanayn waaga Xameeti waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo 20 jir ah waxa uuna sanadkii 1975 uu u dhashay qabiilka carabta ah ee geeleyda ah ee lagu magacaabo Maxamed qabiil la yiraahdo Maxamed oo geeley ah oo ku nool gobolka Darfur ee dalkaasi Suudaan ayuu ninkan u dhashay waxa uu iskuulka hoose dhexe ka saaqiday markii uu 16 sano jir ahaa si uu geela ugu kala dhoofiyo Darfur iyo Jad oo loo sii dhoofin jiray Liibiya iyo Masar Xameeti adeerkiis Juma Dagulo waa hogaamiyaha qabaa'ilka carabta ah ee ku teedsan xuduudaha u dhaxeeya Jad iyo Suudaan sanadihii u horeeyay ee khilaafka Xameeti waxa uu waardiye ka ahaa kolonyada ganacsiga ee Darfur halkaas oo uu xoogaa hanti ah ka helay hogaamiyahan dhalinyarada ah waxa uu gacan ka geystay dardargelinta dagaalyahanada Janjaweed dadka ku xeel dheer arrimaha dalka Suudaan ayaa madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Umar al-Bashir waxa ay ku xantaan in uu xiriir wanaagsan la lahaa kooxaha Janjaweed isla markaana uu maalgelin jiray guudaan dhegeystayaal warkeena caalamka inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa inta aan wararka xiga dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciid wanaagsan